maxkamadda sare ee Somaliland Yuusuf Ismaaciil Cali ayaa maanta magaalada Burco ee gobolka Togdheer ka dhawaaqay xukunno kala duwan oo maxkamadda sare ee Somaliland ku riday eedeysanayaal ku eedeysan falal dil ah. dhageysiga dacwadan eedeysanayaasha oo ay ka soo qayb galeen dadweyne tiro badan ayaa eedeysanayaasha oo kala ahaa Maxamed Axmed Xirsi Muwaariga Caawil Axmed aadan jaamac muuse bulxan ay maxkamadda sare ee Somaliland laba kamid ah ku xukuntay xukunno dil ah halka Axmed aadan jaamac bulxan lagu xukumay 5 sano oo xarig ah iyo 100 halaad oo ah magta marxuumka dilka u geystay waxaana ay xukunadu u dhaceen sidan magaca ummadda Somaliland maxkamadda sare maxkamaddu waxay diiday asbaabta rafcaanka ee rafcaalaha ee ku taariikhaysan 22 bishii shanaad 2013 iyo doorafeedka oo qareenka maxkamadda ka soo horjeediyay laba maxkamaddu waxay ogolaatay jawaabta xafiiska xiraanta guud ee qaranka ee ku taariikhaysan 23 bishii shanaad 2013 maxkamaddu waxay ayday xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Togdheer ee suudiisu ahayd maxkamadda rafcaanka gobolka Togdheer dacwad dambi rafcaan lambar 41 ee 22 bishii shanaad 2013 maxkamaddu waxay ku xukuntay xukunsane dambiye Maxamed Axmed Xirsi inuu farxiyo cali afariyaad jira dib toogasha xukunkan wuxuu soo baxay maanta ay taariikh tahay 13 bishii lixaad 2013 waxayna ku xukuntay rafcaan Muwaariga Caawil Axmed in ciidaaro Maxamed dil toogasha ah kadib markii ay ku cadaatay in uu dilay oo uu ku dhaka jaray kaga jaray tooray oo kaga dhuftay naaska midig hoostiisa marxuum Ismaaciil Cabdullaahi Faarax taariikhdu markay 19 bishii 2012 xukunka waxa lagu dhawaaqay maanta ay taariikhdu tahay 13 bishii lixaad 2013 oo ku xukumay rafcaan sanaha aadan jaamac muuse bulxan ina faadumo ciid 53 jira iyo caaqiladiisa diyadii marxuumka Saleebaan aadan geedi oo ah 100 halaad oo muqallada ah iyo 5 sano oo xarig ciqaabeeda waxa lagu dhawaaqay xukunkan maanta oo bishu tahay 13 bishii lixaad 2013 geesta kalena gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland Yuusuf Ismaaciil Cali oo wareysi kooban siinayay TV-ga qaranka ee Somaliland ayaa ka warbixiyay ujeedada socdaalkan isagoo fariin adag u diray gudoomiyaasha maxkamadaha gobolada iyo degmooyinka dalka waxaana uu yiri gudoomiyaasha mas'uuliyiinta maxkamadaha kala duwan ku amraya in ay maadaama bishii shabcaan ay galay bishii ku xitaabay bishii barkeysneeda ee Ramadaan ay busoo leedahay busoo furud leedahay inay muddadaas dhowr iyo 4 cisho ka hadlay u hawlgalaan oo ay dacwadaha dadka mas'uuliyaasha miisaska qaabta ah sidii ay u dhameyn lahaayeen ama u yareyn lahaayeen ay tiradooda ay u hawlgelin lahaayeen una joojin lahaayeen dacwadaha dhageysiga